Vinicius Jr. oo sameeyay dhacdo ka careysiisay Xabi Alonso kadib markii lagu bedelay Rodrigo kulankii El Clasico ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu oo qayb ka ahaa wareegga tobanaad ee horyaalka La Liga. Waxaa dhacay dhacdo soo jiidatay indhaha taageerayaasha kadib markii tababare Xabi Alonso uu go'aansaday inuu bedelo xiddiga reer Brazil Vinicius Jr. daqiiqadii 72 isaga oo Rodrigo ku bedelay booskiisa. Kaamirooyinka garoonka ayaa qabtay sida uu Vinicius ugu naxay go'aanka lagu bedelay, iyadoo uu si cad u muujinayay caro iyo niyad jab intii uu garoonka ka baxayay. Xiddiga ayaana go'aansaday inuu iska indhatiro salaanta tababaraha, wuxuuna si toos ah u aaday dhanka qolka labiska halkii uu fariisan lahaa kursiga keedka. Vinicius wuxuu soo bandhigay ciyaar heer sare ah intii uu ku jiray garoonka, taas oo sharaxaysa sababta uu uga carooday bedelka uu sameeyay Xabi Alonso. Waxaa la rumaysan yahay inuu ciyaaryahanka uu dareensanaa inuu weli wax badan ka caawin karo kooxda, isla markaana uu doonayay inuu sii wato bandhigiisa wanaagsan ee kulanka. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin in Real Madrid ama tababaraha ay tallaabo ciqaabeed ka qaadi doonaan Vinicius, maadaama dhacdadu dhacday kulanka ugu weyn ee horyaalka, iyadoo kooxda laga rabo in si taxaddar leh ay u maareyso xaaladda si aysan u saameyn gudaha kooxda iyo jawiga qolka labiska. Real Madrid ayaa guul muhiim ah ka gaartay Barcelona iyaga oo 2-1 kaga adkaaday kulankii El Clasico ee wareegga tobanaad ee La Liga, ciyaar ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu. Guushan ayaa ka dhigtay Real Madrid hogaamiyaasha horyaalka iyagoo gaaray 27 dhibcood, halka Barcelona ay ku banjartay kaalinta labaad iyagoo leh 22 dhibcood, taas oo farqiga u dhaxeeya labada koox ka dhigtay 5 dhibcood. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka tahay barnaamijkeenii bandhigga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.